الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والله ليال وجمعيه الرئيي بشهر رمضان جمعيه سي waxay isku baraarujinaynay fadliga bishu ay leedahay yasaynu qaabili lahay bifadli illaahi tacaala waynu soo gaadhnay waxyaabahaynu ka hadlaynay ka mid ahayd in bishan fadliga badan lagaga faa'iideysto camalada fadliga badan inagoo abaaraha ka hadlayna iyo dhibaatooyinkii caamka ah mid khaas ah haddana timid oon maanta maalinteedii jirin bulshadeennana qayb ka mida ku dhacday oo ugu sii darmatay abaartii dadka waynu dareemi karaynaa isbeddelka yimi weyga ah ama usbuuca aynu soo dhaafnay dadka dareenkoodii iyo dhaqaalahoodii iyo wax badan see wax badan u cakirmeen wax walba ilaahay baa qadara subxaana wa tacaala siyaabaha aynu uga dabaalanayno waxaa ka mid a inaynu qaadanno amarka ilaahay inagoo ka faa'iidaysanayna fadliga bishanna waxyaabaha aynu isku dhiirigelinaynaabay ka mid tahay waxbixinta baabkeennu markaa waa assadaqa fadlu sadaqati wa aadaabuha sadaqada halkuu islaamku dhigay fadligeeda ilaa 14 fadaa'ilkaa ka mida baynu dareenin doonaa si dhigaheenna ay u gaadho insha allahu aynu ugu dhaqanno iyo 7 aadaabteeda ka mida si ay fadli u yeelato fadliga sadaqada waxaa ka mid ah inay tahay istifaadatun min fursati alcumr cimrigeennana aynu haysanno aynaan garanaynin goor uu gaari doono fursaddiisa aynu ka faa'iidaysanaynaa siyaabaha looga faa'iidaystaa bay ka mid tahay inaad sadaqada bixiso ilaahay baa wuxuu tilmaamay qur-aanka dhexdiisa qaar adduunka kasii dhimanayo fursaddaa inay waayeen ka cabanaya waanfiquu mima rasaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum almowt fayaquula rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin faasadaqa wa akun min alsaalixiin waa qofkii oo sii dhimanayo aan fursaddii sadaqadana ka faa'iideyn oo ilaahu maadii kaadis ilaahu maadi dibdhigt aan ka faa'iideeyo fursaddii cumriga oo aan sadaqada bixiyo walan yu-akhir allahu nafsan idaa jaa ajaluha qofka haddii ajashiisu ay timaado waqtigiisu dhammaado ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu leeyahy ma dibdhigayo sadaqada fadligeeda waxaa ka mid a inaad aynu ku helayno ballanka ilaahay subxaana wa tacaala ballanqaad dad badan baa dad ay ku kalsooyin hadday u ballan qaadaan ay ku qanca laakiin inaga waxaynu ku qanacsanna ilaahay subxaana wa tacaala wacdigiisa iyo ballankiisa ilaahay baa qur-aanka waxa uu kuhi wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wa huwa khayru raasiqiin fahuwa yukhlifu wax kastoo bixisaan anna waan bedelayaa ha ka baqina ha u baqina bakiilka iyo fulaygu yuu baqin buu ilaahay leeyay bedel baan la soo socdaaye ilaahay bedelkaa kumaanaan qancina wax iyagaanu iska haysanayna haddii la idhaahdo waa cudurkii reer banu israa'iil ku dhacay ku caydhoobeen fadliga sadaqada waxaa ka mid a waa alinfaaq yusabibu linfaaq markaad bixisana ilaahay wuu ku siin haddaad bixin weydana waa laga yaaba wuxuu bixin lahaa inuu kaa daayaba oo raasamaalka aad ka caydhowdo xadiid alqudsi saxiixa ilaahay wuxuu ku uhi ya bna aadam unfiq calayk ina bani aadamow bix rag iyo dumarba labada waa noqonayaa qof yahow wax bixi anna waan ku siin macnaheedu waxa weeye haddaad bixin weyda anna waan haysan marka waxaa laga yaabaa qofki inaanu taa dareemaynina kororhka dhaqaalihiisa ku jirtaa inuu isagu wax bixiyo gacanta ilaahayna habeen iyo maalinba way shubmaysaa buu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam min fadaa'il sadaqa waxaa ka mida in ay ka badbaadinayso qofka khasaaraha waa kii hore unbuu xadiidkii hore si ayadayaa kana asxaabigii abidar la odhan jiray radia allahu canh ayaa wuxuu yihi anigoo nabiga ag fadhiya kacbada agteeda ayuunbaa maalin maalmaha ka mida wuxuu yidhi humul akhsaruuna wa rabbi lkacba ereygaasuu ku dhawaaqay ilaaha kacbadan lebaan ku dhaartae iyagaa ugu khasaaro badan kolkaasaa nabiga weydiiyey sala allahu calayhi wasalam waxaan ku uhi yaad ujeedaa wuxuu igu uhi waxaan ujeedaa kuwa xoolaha badan humul aktharuuna amwaalan dadka ugu xoolo badan iyagaa ugu khasaaro badan ilaa qof dhan walba u rido midigta bidixda xagga hore xagga dambe wax bixinta badiya mooyaane qofku haddii uu iska haysto isagunbaa u khasaaro badan wuu xisaab badanaya wuu cadaab badanaya
waxaanu wada cuni karayn buu ciqaaban yahay qofku marka uu sadaqada bixinayo waxa weeyaan waa sadaqada bixinteedu waa istijaabatun liamri illaahi wa ifaadatun lilahli walaqaarib ilaahay amarkiisiina waad qaadatay haddana wixii kaamay bixina way kugu baxeen oo dee meel kala geyn mayne dadkan qaraabadeenni iyo ehelkeennu baynu siinaynaa kollayba oo waad ku xil tiranaysaa waad ku xil baxaysaa markii ay soo degtay aayaddaa ilaahay uhi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun gaari maysaan samafalka iyo wanaaggaad doonaysaan jeer oo bixisaan waxaad jeceshiin wax ka bixisaan asxaabigii abu dalxa reer ansaareed reer madiina nebigu u yimi sala allahu calayhi wasalam markaa wuxuu uhi anigu waxaan ugu jecelahay hadduu ilaahay aayaddaa soo dejiyo waxaan ugu jecelay beertaydaa beeruuxa laydhaa ee ku taalla magaalada bartankeeda iyo meelaha loogu jeceliyay tiro aada u badan oo boqolaal geedoo timiroo hawray oo bislaaday baa ku yaalay markaa wuxuu uhi iga guddoon ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuu ku hambaliyey bakhin waa hambaliyo badhaadhe bashbash iyo barwaaqan waa maal faa'iidadiisu ay badatay waan kaa guddoomay laakiin waan kugu celiyey dadka qaraabada u qaybi ilmaadeeradii iyo ehelkiibuu u qaybiyey waanu bixiyey kamanay fogaanin sidaasibaa islaamku qofka uga faa'iideynayaa oo ugu faa'iideynayaa sadaqada fadligeeda ayay ka mid tahay waa arrinta toddobaade inay tahay inaynu dedejinno shaydaan baa jira naf baa jira shaydaan xagga insiga ah baa jira haddaad iminka ku dhaqsan weyda waa wax carqalad baaba iman doonto waaba laguu bixiyo balaayaa ku hor joogsan saynu mararka qaarkood aragnay dad wax ku yabo haa dib uga noqdaa maxaa dhacay waan kari waayey muu kari waayna waa la helay markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maa yasurunii ana lii uxudan dahaban taati calaya haaliatun wa cindii minhu diinaarun ilaa diinaarun arsuduhu lidaynin calay wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam haddii aan hela buu ihi gini ama shilin ama iska soo dhaafo buurta dahab la yidhaha buurta uxud la yidhahda in la eegoo dahab ah haddaan helo waxaan jecelahay inaan hore u bixiyo ilaa gini aan u kaydinayo ama in aan u kaydinayo dayn laygu leeyahay mooyaane dayntaa wax waan u dhigayaa laakiin wixii aan helo haba fara badnaadeen doonaya inaan bixiyo deg deg baan u bixinayaa buu nebigu sala allahu calayhi wasalam markaa intaan lagu hor joogsanin mar haddaad go-aansato horay ka qadib ilaan dantaada wey dantaadii baa lagaa hor joogsanaya dadkaagaa kuu diidaya saaxiibadaabaa kuu diidaya oo shaydaanku soo dhex maraya arrinta sideedaad sadaqada in la bixiyo fadaa'ilkeeda waxaa ka mid a ascabu sadaqati afdaluhaa midiba midkay ka adag tahay bay u fadli badan tahay sadaqada qofka sadaqadu ay aada ugu adag tahay fadligeedu aada buu u badan yihi nabiga waxaa la su-aalay calayhi salaatu wasalaam ayu sadaqati afdal sadaqa maxaa u fadli badan waxa uhi anta sadaqa wa anta shaxiixun takhsha alfaqra wa ta'mulu lghina waa sadaqadaad bixinaysa adigoo caafimaad qaba oo aan cudur qabin ogabay markuu qofku buko dee waa kanoo wuxuu bixinayaa buu badiyaa wuxuusaa tan calfan mayso ka socota haatan iska bixi adigoo shaxiixa sadaqadaad bixiso ku adag waxyaaba adkaynaya waxaa ka mid a qofku wuxuu isleey intan haddaad bixiso waxba heli maysid ama wuxuu isleey hebel gaadh dadka labadaasaa u hawl badan qof isle intan haddaad dhigato wada caydhoobi intan haddii aad kuu taalla iska bixiso iyo qof isle hebel gaadh labadaasaa u hawl badan sida ardaydaba imtixaanka had iyo jeer waxaa ugu dhib badan qofka dhicid ka baqaya iyo ka derajada wanka ama tuuga higsanaya dadka dhexe waa sahlayn laakiin labadaasaa ugu warwar badan marka qofka noocaas oo kale sadaqada uu bixiyaaba u fadli badan buu nebigu waayo dagaal adag buu galay oo naftiiyo shaydaankii la galay bahashaana ha u kaadinina buu nebigu ilaa markay halkaa kalxamaha soo gaadhaad odhan doontaa lifulaanin kada lifulaanin kada waqad kaala lifulaan hebelintaasiya hebelintaasiya waa qaar u diiday horay waxba u siin waaye haddii hebeladan iyagaaba yeelanaya oo dhaxalkaaga qaadanaya fadligeeda waxaa ka mid a sagaalaad almustalimu lisadaqati huwa allahu subxaanah sadaqada cidday naga guddoomaysaaba waa ilaahay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood imanka haddii qaadhaan laga ururiyo la idhaahda madaxweynaha adiga kaa qaadaya ama sheekh hebel baa kaa qaadayood u geynaysaa ee guddida marin maysid
waxaa laga yaabaa inuu soo qaado soo kaashgareeyo isagoo kiish ku siita waxaa lagu leeyahay halkan ilaahay baa kaa qaadaya subxaana wa tacaala oo nebi iyo cid kale toona kugu halaynaynin kaa guddoomaya saasuu nebigu ku caddeeyey sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay man tasadaqa bicadli tamratin min kasbin طayibin walaa yaqbal allahu ila طayib qofka xalaal bixiya ilaahay xalaalunbuu aqbalaaye waa musiibada maanta ayna haysata wey xaaraantiibaa badan xaaraantiibaa aada u badan inkastoo qofka xaaraan haya laga qaadiyo danaha guud iyo dadka fuqarada baktiya la siin doono oo dee iyagunbay ka maqnayd iyo dalkunbay ka maqnayd marka xoolo xaaraan hadduu qofku idhaahdo keen ajri kama helaya waynu weydaarin oo danaha guud baa la gelinaya iyo dadka baktiyaya isagu laakiin ajri kama helaya haddaba qofka xabad timira waxu dhigma oo sadaqaa bixiya buu nebigu sala allahu calayhi wasalam ilaahayna xalaalun buu aqbalaaye fa ina allaha yataqabbaluha biyamiinihi uma yurabbiha lisaaxibiha kamaa yurabbi axadukum fuluwa ilaahay baa gacantiisa midig kaga qaadaya kolkaasuu u kobcinaya u barbaarinaya siduu qofku neefkiisa yar u jecel iyo faraskiisa yar iyo u koriyo ilaa uu uga dhiga buu nebigu sala allahu calayhi wasalam buurta uxud ama buur wax la-eg ilaa uu ilaahay uga dhiga subxaana wa tacaala fadaa'ilka iyo fawaa'idka sadaqada waxaa ka mid a waa takfiiru sayi-aat dembigaa ilaahay naga dhaafaya wasadaqatu tudfiu lkhati'ata kamaa yudfiu lmaau nnaar sadaqadu waxay u baktiisaa dembiga siday dabka biyuhu u baktiyaan dembiguna qofka muuminka waa waxa ugu warwar badan weeye ilaahay waa ayaan dara inuu ilaahay hortiisa isagoo dembi ku raran la tago faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid a namaa lmaali wa ziyaadatu ilaahay baa ku barakeeya sadaqada maalka haddaad doonayso inuu barakoobo badnaantu muhiimaha barakadaa muhiima sadaqadaa ilaahay ku barakeeya maa naqasat sadaqatu min maal buu nebigu sadaqadu maalka waxba kama nuqsaamiso tiro iyo tayaa jira haddii tiradii wax yar dhinmeen hadda tayadii baa kordhaysa ogo sadaqada fadaa'ilkeeda waxaa ka mid a fadliga 12 istidlaalu lmu'mini fii dilli sadaqati yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha qofku harhka sadaqadiisu harsanaya ilaahay baa har siinaya sadaqada ay sabab u noqoto toddobadu ilaahay hadheeye waxaa ka mid a warajulun tasadaqa bisadaqati fa akfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinu waa qof midigta wax ka bixiya aadna u qariyay jeeroonay bidixda ogaan maalinta qiyaamaha dadku ilaahay soo xaadirinayu ka mid yahay ee odhanaya harhkan harsada dadkuba wada kululyahay fadliga 13 sadaqadu ay leedahay waxaa ka mid a taqi lcabda kaiira min ashuruuri walmasaa'ib ilaahay wuxuu kaga ilaaliyaa balaayooyinka wareegaya taasna cid waliba way ka markhaati kacday oo wax isha lagu arkay weeye way dhici kartaa dadka inuu dee ilaahay imtixaanaad ku rido isagoo iimaankooda imtixaanaya iyagoo sadaqadii bixiyay haddana taasina dhinac kalunbu ajri kaga helaya ajriga musiibada laga helayo markaana helaya afdalu anwaaci sadaqa waxaa ka mid a sadaqada jaariga kutub la daabaco masaajida la dhiso ceelal biyaa iyo aqoonta diiniga oo dadka la baro waxa masaajidadii waxaasoo dhan waa sadaqooyinkii jaariga ahaa ee uu nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam sadaqo jaariya aadaabta sadaqado aada u muhiima aynu soo noqon marar badanna inagu adkaata si ay afdaliyadda iyo qiimaha u yeelato aadaabteeda waxaa ka mid ah alikhlaasu lilaahi fii sadaqati qofku inuu ilaahay daraaddii ula jeedo sadaqada uu bixinayo dee dadka wax kagama doonayo waa inuu ilaahay daraaddii isagu wax kaga doonayaaye waa inuu rabbi daraaddii u bixiyaa oo gaaladu dadka istusaa waayo ilaahay waxba kama doonayaan iyaga la mid mahin markaa in tubdu sadaqaati fa nicima hiya wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqara'a fa huwa khayru lakum weliba taa fuqarada la siinaya sii fadli badan waxaa fadli aadaabteeda ka mid a an naxdara min atasaduqi biradii inaynu ka feejignaano wax foolxun inaynu bixinno oo shay liita oo adiguba aanad qaadateen ha ku bixinin sadaqada laakiin waa kaa ilaahay tilmaamaya lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun waxaad jeceshihiin buu ilaahay dad waa ay iyo adoo kale marka wixii aad adigu jeceshay in lagu siiyo ayaad bixinaysaa fadligaas waxaa ka mid a inaynaan raacinin cadamu itbaaci sadaqati bilmanni waaladaa inaynu dhibkana ka dayno galad sheegashadana ka dayno ciddaad siinaysa ha dhibin ciddaad siinaysa ha u galad sheeganin waxba ha sheegin ha iska kharaabin sadaqada aadaabteeda waxaa ka mid a qofku inuu iska ilaaliyo wixii bakhaylnimo ah oo maalkiisa wax ka bixiyo waxaa ka mid a aadaabta sadaqada anlaa yaxqira shay-an yatasadaqu
ألا يحتقر شيئا يتصدق قفك وحي وبحنا أنو يريسن هيا ريسن إلهي يكتي سو كوي حبات تمير الشيحيد والنبي السوقارسي صلى الله عليه وسلم صدق الله أبضنا وحب بحية هذه يتشير ضدك عامك أما بلشدة كودهان تيدا كوا وهن يربع ويقول ترى بدين marka tiradooda badan hadii ay wax yar bixiyaan oo la isu geeyo tujaartu waxay geeyeen waxay bixiyeen way ka badataa hadiya jeer marka aragtida marka wax bixin la soo qaado in dadka dhaqaalaha buuran iyo badan haysta un la eego qalad weey saxaabadu ridwaanullaahi calayhim waxay la iman jireen kiish wax ku jira iyo koombo iyo galaan bay keeni jireen intaas la ururin jiray hatta takuuna kawmatan min at-ta'am ila ay buur noqoto boqolaal qof baa sidaa u soo saydhaya inta in lagu isku darayo buur bay noqonaysaa aan tijaartu karayn marka qadiyada sadaqada marka laga hadlayo caruurta lagu tababaraya dumarka lagu tababaraya dadka muruqmaalka iyo dadka wax yar haysta intaas badanaysa adaabta sadaqada waxa kamid ah alla yarji'a fi sadaqati qofku inaanu sadaqadii u bixiyo ku noqonin hatta dib ha u iibsanin sakada iyo sadaqada wixii aad bixisa hatta dib ha ugu noqon ee ka had نبينا صلى الله عليه وسلم لي العائد في هبتي كالكلب العائد في قيه أي هم قاعدين يدبوا عنيبوا كدقيها قفك أنتوا وحبحية يدبوا النقطة وإذا على مرك قاركود دتكو أنت أي وحساسيان مرك السوء رادان يسكجر النقطة هذا أما إني حاسكي أما دتك أهلك أما أصحابته وغلط وعيب يعيد عيب ويكان راعيسة عيدنا ويكان راعيسة وحبكوا هلي ميس كل ده قفك يسيسوا له وريجي maxkamadda hadii la tagan ka soo ceshan karays marka arintaasina waa inaynu ku baraarugsanaano toddobada shay waxay kamid yihiin nusuusta laga soo ururiyay faa'iidooyinka sadaqada waxyaabo ay noo kasbi kara ee aadaabteeda idan markaynu isu geyno wixii aynu helayno xukuumad iyo shacbi iyo maalqabeen iyo miskiin baa aynu isu geyno waxa ka soo baxaya halka muruqyo aynaan filaynin oo shisheeyaha aynu ka filaynay halka ka soo bixi doona iyo dadku meel walay joogaan ba inay gurmadka isgaarsiiyaan waana waxa koonka ilaahay ku siyaala ummadaadana aad ku maal gashato aba lagu hayo اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبضاعتك عن معصيتك يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة